haddii aad fiidiyowgan ku soo dhufatay waxa ay ka dhigan tahay inaad raadinayso habka ugu sahlan ee aad lacag uga samayn karto affiliate marketing 2024. haddaba ku soo dhowo koorskan waxaad ku baran doontaa step by step sida ugu fudud ee aad ku bilaabi karto lacagna uga samayn karto affiliate marketing from start to finish. koorskan waxa uu ku socdaa qof walba oo beginner ah oo wax khibrad iyo aqoon aan ka haysan affiliate marketing, sidoo kalena danaynaya inuu barto xirfaddan. ama sidoo kale haddii aad tahay qof wax u bilaaban yihiin oo rabo inuu xirfadiisa sare u qaado, then this course is for you. dhammaadka koorskan waxaad awood u yeelan doontaa inaad baratid masterna ku noqotid tooliska iyo istaraatiijiska aad u baahan tahay si aad lacag uga samayso affiliate marketing. haddaba koorskan waxa uu ku kooban yahay 4 step. Step 1 oo ah introduction. qaybtan waxaan concept fiican ka siin doonaa affiliate marketing iyo qaabka uu u shaqeeyo. Step 2 affiliate offer. waad ku baran doontaa sida loo doorto productiga aad promote garan lahayd. Step 3 waxaad ku baran doontaa sida loo dhiso website iyo sidoo kale landing page. Step 4 stepkan waxa uu kala qaadi doonaa 2 qayb paid ah oo aad ku baran doonto sida Google Ads loogu xayeysiiyo productiga aad soo qaadatay. haddaba qaybtan waxaad u baahan doontaa xoogoo lacag ah si aad xayeysiin u geliso, iyo qayb free ah oo aad ku baran doonto sida website loo samaysto looguna promote gareeyo productigaaga adigoo adeegsanaysid blog post. haddaba haddii aad ka heshay koorskan, like saar muuqaalkan, sidoo kalena ha ilaawin inaad channelka subscribe saarto. mahadsanid. aan u gudagalno muuqaalkeena. waa maxay affiliate marketing? affiliate marketing haddii aan si fudud ugu sharxo, waa in percentage lagaa siiyo lacagta product aad iibisay oo ay shirkad kale leedahay. tusaale, ka soo qaad shirkad dhar ayaad la heshiisay, waxayna ku dhaheen qof kasta oo aad noo keentid oo naga iibsada shaati $100 ah, waxaan ku siin doonaa 40% lacagtaas ama $40. so qof walba oo aad keentid oo shaati iibsada waxaad heli doontaa $40. qaabkaasna waa habka uu shaqeeyo affiliate marketing. waxaa rajeynaya inaad fahantay. marka waxaad isweydiinaysaa sidee lagu ogaanaa inaan qofkan keenay iyo in kale. taas jawaabteedu waa simple. shirkadda markaad la heshiisid waxay ku siin doonaan linkigaas oo adiga kuu qaas ah. marka linkigaas ayaa dadka la wadaagaysaa. qof walba oo linkigaas ku dhufta oo shaati iibsada waxaad ku heli doontaa commissionkaaga $40. haddii uu 2 shaati iibsadana waxaad heli doontaa $80 and so on. habkaasna waa habka u shaqeeya affiliate marketing. affiliate marketing si kooban waa inaad shirkad macaamiil u keentid oo wax ka iibsata. marka macaamiil kasta oo keentid oo shirkadaas wax ka iibsada, lacag commission ah ayaad ku leedahay, waxaana ku siin doona shirkadda. marka istaraatiijiyadan isticmaali doona koorskan waa waxaan soo qaadan doonaa product ama physical product ha ahaado ama digital. company-ga rabta ka soo qaado. marka productiga soo qaadano, traffic ayaan u keeni doonaa ama dad iibsada productigaas. qaabka rabnaan ku keenno ama qaab free ah ku keenno ama xayeysiin siday noqotaba. qaabkaan dadku ula wadaagna waa la wadaagaynaa. marka intaas sameyno, dan waxaan samayn doonaa landing page si aan dadkii aan keennay ugu qaabilno kadibna ugu gudbino website-kii productiga iska lahaa, maadaama aan la ogolayn direct linki ama inaad si toos ah dadka u gudbiso website-kii ama store-kii wax laga iibsanayay. marka muhiimadda ugu weyn waxaa waaye inaad dad keentid. dadkaas 2 qaab aad ku keeni kartaa. inaad qaab free ah u keentid oo ah ka soo qaad inaad website leedahay ama page Facebook aad leedahay ama YouTube, meeshay doonto waa noqoto. marka meel dadku xiran yihiin inaad leedahay, kadibna dadkaas aad la wadaagtid, kadibna saas kugu iibsadaan. iyo qaabka labaad oo ah inaad productiga aad soo qaadatay aad xayeysiisid, lacagna ku bixisid si dad lagugu keeno. koorskan koowaad waxaan ku qaadan doonaa sida qaab lacag ah aad ugu keeni lahayd dadka adoo xayeysiinaysid productiga. maadaama qaabka free ah uu ka dhib yar yahay, haddii aad mar lacag haysato way fududahay, sababtoo ah markaad lacag bixinayn oo qaab free ah ku keenaysid, haddaadan influencer ahayn oo kugu adkaan doontaa oo waxay kuu qaadan doontaa bilooyin inay website-kaaga waxaas ku kala kacaan. ayadana ha ka welwelin. koorska soo socda qaybtiisa 2 ayaad ku kofar garan doonaa. insha Allah mar dhow waan soo gelin doonaa. step ugu horeeyo waa inaan product soo qaadano, productiga aan promote garan lahayn. haddaba si aad soo qaadatid producti, waxaad u baahan tahay inaad networkii productigaas bixinaysay aad la soo saxiixatid oo iska soo diiwaangelisid. marka waxaa jiraan
networks badan oo bixiyaan affiliate waxaana ugu caansan Digistore, Clickbank, Amazon Associate iyo kuwo kaloo badan sida Moxibont iyo marka labada ugu caansan oo lacagta fiican bixiyaan waa Digistore 24 iyo Clickbank. marka labadaas way iska agdhow yihiin, labadaas tutorialkan ku soo qaadanaynaa. Clickbank badanaa kama shaqeeyo Soomaaliya iyo Afrikadan, marka muuqaalkan waxaan xooga saaraynaa Digistore 24. haddaba isla socod wanaagsan. ugu horreyn waxaad soo furataa browserkaaga, kadibna waxaad ku qortaa digistore24.com. waxaad arki doontaa shaashadan. dan si aad iskaga diiwaangelisid waxaad ku dhufataa meesha ay ku qoran tahay register now. kadibna waxaa kuu soo bixi doona foomkan waxaa laga rabaa inaad gelisid emailkaaga, usernamekaaga iyo passwordkaaga. kadibna meeshaas I'm affiliate ka dhig, meesha kalena tigsaar register now, kadibna taawo. waa intaasun. hadda aniga ciwaankayga waa ii samaysan yahay, waa login gareynaa. markaa login gareysid waxaa kuu soo bixi doona pagekan. marka hore waxaa ku dhufataa meesha ku qoran tahay marketplace, kadibna waxaa ka doorataa meesha ay kusoo qoran tahay all offers. waxaa arki doontaa dhammaan products ku jira networkan. marka productiga rabtid, hadda tusaale ahaan kan labada haddaan ku dhufano productiga, marka waxaa lagu doortaa kow waxaa laga fiiriyaa cancellation rate-ka. haddii uu badan yahay waa la iska dhaafaa, hadduu yar yahayna waa la qaataa. hadda kan saa ujeedid 1.45 waa okay waa. sidoo kale waxaa la fiiriyaa conversionkiisa inuu badan yahay la rabaa. sidoo kalena waxaa la fiiriyaa lacagta aad qaadanaysid. hadda kan 148 waaye, lacag fiican waaye halkii mar oo qof kaa gato. sidoo kalena waxaa la fiiriyaa price-ka caadiga. marka meeshan waxaa ka tegi kartaa sales page-ka ka fiiri kartaa inuu page fiican yahay oo conversion fiican sameynaya inuu yahay. haddaa u bogtid page-ka markaas oo intii horena ay ku saxsan tahay, productkan oo promote garin kartaa, product fiican waaye. sidoo kalena waxaa iska fiirisaa affiliate page-kooda tagay, waxaa iska fiirisaa termska, waxyaabaha loo galeen iyo waxyaabaha loo gelay. marka iska fiiri dhammaan restrictionska, sababtoo haddii aad lacag ku samaysid waxyaaba ay diidan yihiin, sawiraanta qaar aysan ogoleen aad jiro. haddaa kuwa soo qaadatid oo lacag ku samaysid, lacagtooda way ka cashi karaan. marka si fiican iskaga akhri. productiga markaa u bogtid waa qaadan kartaa. markaa si aad u qaadatid waxaad taabataa promote-kaas marka ka taabatid waxaa kuu soo baxayo copy promo link, meesha sii taabo. kadibna waxaa soo qaadata linkigii loo baahnaa. linkigaas ayaad promo gelin doontaa. linkigaas marka dadkii kusoo dhufto oo ka gata meeshaas waa lagu xisaabin doonaa qof walba lacagtiisa. linkigaas waxaad dhigataa meel fiican, kadibna stepka xiga u gudbi kartaa. mar haddii aad soo qaadatay linkiga affiliate-ka, waxaad u baahan tahay meeshii aad dhigi lahayd. marka waxaan sameynaa website-kii linka aan dhigi lahayn iyo landing page-kii laga soo raaci lahaa. marka landing page laba qaab waa u sameyn kartaa. qaab koowaad ah inaad landing page keligiis aad samaysid adigoo adeegsanaysid platformska landing page keligiis lagu sameeyo sida system.io, ClickFunnels iyo kuwa la midka ah. iyo qaabka labaad oo ah inaad website caadi aad samaysatid kadibna landing page aad meesha ka dhex samaysid. labada qaab waa u sameyn kartaa. marka waxaan ka horgalin doonaa sida website loo samaysto kadibna landing page looga dhex sameeyo. sababtana waxaa waaye marka website ka dhex sameynaysid landing page-ka wuxuu uga faa'iido badan yahay. landing page keligiis markaa sameynaysid waxaa u baahan tahay page kasta aad sameynaysid inaad domain cusub aad samaysatid ama domain cusub aad iibsatid. marka haddii mar aad rabtid inaad iska bedeshid productigii oo product kala promote gareysid, haddana waxay noqonaya inaad landing page kala samaysid iyo domain cusub aad iibsatid. laakiin haddii aad website ka dhex sameynaysid markaas way fududahay. intaasoo producti ayaa hal website ku promote gareyn doontaa. laakiin landing page waxay noqonaya mar walba inaad domain cusub iibsatid. marka website kala joogo hal mar oo keliya ayaa domain iyo hosting iibsanay. then inta product aad rabtid haddii aad rabto 100 producti oo ku promote gareyn kartaa. inta landing page oo rabtid waa sameyn kartaa. marka website ayaan sameyn doonaa kadibna landing page ayaan ka dhex sameyn doonaa. isla socod wanaagsan. ugu horreyn si aad website u samaysid waxaad u baahan tahay inaad iibsatid domain name iyo hosting. domain name waa magaca website-kaaga ay dadku kusoo booqan lahaayeen. tusaale sida google.com,
facebook.com iyo xilmiga waa domain name waa meeshii oo dadkaas oo raaci lahaayeen. Hostingna waa website-ka faylashiisa meeshii la dhigi lahaa. Marka waxaan ka iibsan doonaa shirkaddan lagu magacaabo DreamHost. Hostingka keliya ayaad iibsanay, domain name-kana keliya ayay kuu siinayaan. hal sano hosting haddaad iibsatid domain-ka keliya ku hele. So hadda DreamHost page-kooda adigoo ka raacaysid linkii aan hoos ku dhignay waa affiliate, qiimo dhimis fiican oo ku hele, annagana commission fiican ayaan ku heleynaa. So DreamHost markaad tagtid hoos u bax meesha ay ku qoran tahay WordPress hosting ku dhufo. Markaad ku dhufatid hoos u bax kadibna waxaad arki doontaa 1 year, 3 year iyo monthly. meeshaas waxaad ka doorataa 1 year si aad domain keliya aad heshid. kadibna waxaad arki doontaa labadan balan. marka kan hore WordPress starter-ka haddii aad hal website rabtid kaasaad la doortaa. haddii aad website badan rabtid inaad host garaysidna kan kale la doortaa. qiimahooda isku mid waaye, laakiin hadduu markaa new garaynaysid ayaa qiimo kala duwan yihiin. marka kadibna waxaad taabataa sign up labada midkaad dooratid. kadibna waxaa kusoo bixi doonaa 3 option. kan koowaad oo ah inaad domain gadaal ka dooratid, kan labaad inaad domain cusub aad samaysid, iyo kan saddexaad ah haddaad domain hor u haystid kaasaad dooran kartaa. marka anaga domain cusub ayaan hadda sameynaynaa. waxaad doorataa kan labaad, optionka labaad, register new domain. kadibna waxaad gelisaa domain name-ka aad rabto magaciisa. haddii uu available yahay waa arki doontaa oo qaadan kartaa. haddii hore loo qaatana mid kale ku baraawe. marka gelis search dheh, markuu kuu soo baxo adkaas taawo. haddii uu available yahay adkaas kuu soo qoraa. ad markaa ku dhufatid wuxuu ku geyn doonaa page-kii oo lacagta laga bixinayo oo foomka laga buuxinayo. marka page-kan waxaa laga rabaa inaad information-ka gelisid. haddii ahaan lahayd credit card-kii iyo gmail-kii iyo account cusub sidoo kale inaad samaysid. foomka ugu horeeya oo laga rabo inaad buuxisid waa meesha lacagta ka dhiibi lahayd, haddii ahaan lahayd credit card iyo debit card. marka foomkaas meesha ugu horeyso waxaa gelisaa debit card-ka magaca kugu qoran. meesha ku xigta waxaa gelisaa card number-ka, kadibna taariikhda u dhacayo iyo CVV-gaaga. marka intaad samaysid waxaa u gudbi kartaa foomka labaad. foomka labaad waxaa laga rabaa billing information-kaaga, waa meesha lacagta ka bixinaysid. meesha ugu horeysa waxaa gelisaa address-kaaga, street-ka. meesha labaadna country-ga waa Soomaaliya. meesha saddexaadna waxaa gelisaa state-ka Banaadir ama meesha joogtid. meesha afaraadna Muqdisho city meesha joogtid, magaalada joogtid. meesha kalena waxaa gelisaa CIV code-ka. kadibna hoos u bax waxaa buuxisaa qoraalkan yar oo meesha ka muuqdo. kadibna waxaad taabataa add credit card. dan waxaa u gudubtaa foomka saddexaad, waa account-iga meesha gelin lahayd. meesha koowaad waxaa gelisaa email address-kaaga. meesha labaad waxaa gelisaa first name-ka iyo last name-ka ku xigo. kadibna numberkaaga, phone number-kaaga geli. waa intaasan foomka saddexaad. marka waxyaabahan TikTok ka qaadi kartaa hal xabadaas ugu koreysa la rabo haddaad rabtid intaan kale lacagta kugu badanayaan waad ka qaadi kartaa. intaas markaad samaysid waxaad taabataa submit order taawo. submit order markaad taabatid waxaa kuu soo bixi doono page-ka baaswiir ka samaysan lahayd. marka meeshan waxaa gelisaa baaswiir oo strong ah. baaswiirkaaga gasho. markaad gashatid kadibna waxaad taabataa continue. sidaas ayaa ku iibsatay domain name iyo hosting. marka step-ka xiga waxaa waaye inaan soo install gareyno WordPress-kii. marka si aad samaysid waxaad tagtaa meeshaas ay ku qoran tahay websites oo gees kore kaaga muuqanayso. kadibna waxaa ku dhufataa manage websites meesha ay ku qoran tahay. then waxaa kusoo bixi doona website-yadii aad lahayd oo dhan. hadda hadduu cusub yahay kaaga website badan ma arkaysid, hal website oo kaliya ayaa arki doontaa. kadibna website-ka ka door waxaad samaysaa meesha ay ku qoran tahay manage taawo. manage-kaas markaad taawatid waxaa kusoo bixi doono WordPress meesha ay ku qoran tahay. kadibna install-kaas gees ka xiga taawo, install leh. then marka waxyaabaha next ayaad iska taaban kartaa, sababtoo anaga website oo dhammaystiran ma samaynayno. website-kan waxaa ka rabnaa oo keliya landing page iyo sidoo kale in hadhow naga anfaco. marka next markaad aadid kadibna install sayda. kadibna waxaa sugtaa daqiiqado yar intuu ku install garaysmaayo.
oo daqiiqado ay ku qaadan doontaa. Markuu dhamaado marka waxaa ku dhufataa meesha ay ku qoran tahay manage si aad macnaha website-kaaga aad u tagtid qaybta editing-ka. Kadibna waxaa kusii dhufataa WordPress meesha hadda ku aadan oo ku qoran tahay manage. Marka wuxuu keeni doonaa page-ka website-ka ka edit gareyn lahayd oo WordPress-ka ahaa backend-igu uu keeni doonaa. Marka waxaa samayn doonaa ugu horreyn inaan sameyno setup oo aan hagaajino WordPress-ka isla socod wanaagsan. Si aad setup u samaysid marka hore waxaa ku dhufataa meeshaas ay ku qoran tahay kore oo screen options. Kadibna waxyaabahan dhan tig ka qaad si aad shaashadda u nadiifisid. Kadibna meesha waa iska xiri kartaa oo iska laabi kartaa. Kadibna waxaan tagi doonaa setting-giska waxaana bedeli doonaa. Waxaa ku dhufataa setting-giska kadibna general kusii dhufo. Markaan waxaa iska bedeshaa site title-ka waxaa ka dhigataa magaca title-kaaga iyo sidoo kale tagline-kaaga iska bedel. Kadibna waxaa taabataa save changes oo hawsha ugu horreyn inaad qabato laga rabo. Then waxaa tagtaa meesha ay ku qoran tahay permalinks-ka. Permalinks markaad taabatid waxaa ka dhigtaa post name sidoo kale waxaa taabataa save changes. Waa intaasun setup-ka. Marka hadda waxaan samayn doonaa landing page-ka. Waxaa tagtaa meesha ay ku qoran tahay plugins. Kadibna waxaa kasii doortaa meesha ay ku qoran tahay add new plugin. Then search-iga waxaa ku qortaa seed drop. Search-iga ku qor plugin-kaas ayaa rabnaa inaan soo dejino. Then waxaan kusoo bixi doono plugin-ka ugu horeeyo oo SEMrush ay ku qoran tahay oo landing page-ka lagu sameeyo. Install garee ana hadda way install gareysan tahay. Marka install gareysidna waxaa sameysaa activate samee. Marka inta sameysid waxay kala soo muuqan doontaa geeska. Kadib ayada ku dhufo kadibna landing page meesha ku qoran tahay kasii taabo. Marka new landing page waxaad taabataa add new landing page si aad page cusub u sameysid. Then marka waxaa sameysaa waxaad tagtaa meesha ku qoran tahay sales-ka. Anaga waxaan samayn doonaa page oo sale ah. Marka sale markaad taabatid inta badan waxaa arki doontaa templates oo diyaarsan. Inta badan marka labada xabo ugu horeysa maahane. Marka labadan xabo ugu horeysa mid ka dooro. Hadda anaga kan koowaad tusaale ahaan kan koowaad ayaan dooranaynaa. Waa dooran doonaa kadibna waa edit gareyn doonaa. Marka waxaa sameysaa marka aad dooratid waxaa bedeshaa page name-ka waxaa ka dhigataa product-iga aad soo qaadatay magaciisa ama wax kale ka dhigo oo asaga kaaga dhow. Then waxaa sameysaa meesha ay ku qoran tahay save and start editing page taabo. Marka taabatid waxaa kusoo bixi doona marka page-kii aad ka edit gareyn lahayd. Plugin-ka markaad sameynaysid page aad ku sameynaysid uma baahna waxa aqoon saa'id ah. Kaliya waa drag and drop waaye qof walba fahmi karo. Marka waxaad rabtidna waa iska bixi kartaa waxaad rabtidna waa soo gashan kartaa. Tusaale haddaad rabtid inaad iska bixiso sawirkaas oo kor ka muuqdo isagaa tagi kadibna waxaa ku dhufanaya delete meesha ay ku qoran tahay oo geeska ah. Sidoo kale haddii rabtid inaad headline-ka iska bixisid delete meesha ku qoran tahay geeska taabo. Marka intaasun meeshaan marka sawir ayaa soo gashan doonaa. Waxaa taabataa geeska meesha ku qoran tahay meesha image-ka soo qaad kadibna meeshaan dhig. Then sawirkii taabo meesha geeska oo kusoo baxayso use your image si aad sawir soo gashatid. Kadibna upload files meesha ku qoran tahay sawirkaaga soo dooro open dheh. Markuu kuu soo baxo kadibna waxaa taabataa select si aad sawirka soo gashatid. Sawirka sidaas aad kusoo gashatay. Marka waxaa rabnaa inaan soo gashan headline kale meesha fargeeska taabo. Kadib waxaa soo qaadaa headline-ka sida hadda camal kadibna meeshaas dhig. Then markaad soo qaadatid headline-kaaga waxaa rabtid ku qoro. Marka ku qoratid saa kuu soo bixi doona. Haddii aad rabtid hadda size-kiisa waa yaryahay kan inaad weynaysid aad rabtid meesha ay ku qoran tahay geeska font size-ka weynee ilaa meesha aad ku qanacsan tahay gaarsii. Marka easy waaye geedkan. Waxaa sameysaa haddii aad rabtid inaad container-kan weynaysid container-ka taabo width-giisa inaad weynaysid aad rabtid kadibna width-ga oo geeskaaga soo baxayo ilaa meesha aad ku qanacsan tahay gaarsiiso. Marka section-ka xiga ugu gudbeynaa waa sida hadda oo kale waaye. Sawirkan haddii aad rabtid inaad iska bixisid
isaga taawo kadibna waa iska bedeli kartaa isagana meesha geeska taawo sawirka kaga soo baxayso then sawirka soo gasho sida hadda camal kadibna selected qoraalkan isagana haddaad rabto inaad iska bedeshid waa taawo kastaa kadibna isagana iska tirtir ilaa meeshaas waxaa ku bedelataa oo soo jiidasho leh ilaa fiican ku bedelo qofka markuu akhriyo soo jiidanayo waa laga rabaa meesha inaad ku bedelatid qoraalka ku xigana sidoo kale waa muhiim saaid waaye sababtoo ah qofka waxaa la rabaa markuu headlineka arko kadibna waxaa la rabaa inuu qoraalkan oo information fiican oo ka helo oo qofka kusii qancinayo inuu linkiga sii taabto marka meeshan waxaa ka dhigataa qoraal soo jiidasho leh ChatGPT iyo meelaha AI gal kadibna waxaa kasoo qaadataa qoraal fiican meeshan koobiga aad iyo aad ayay muhiim u tahay soo isku day inaa qoraalkan iska qurxisid koobigan waxaa la rabaa informationka dhammaystiran inaa geliso lama rabo information oo half ah oo qofku markuu bugo oo akhriyo information ka dhiman kadib inuu doontaa la rabaa sidoo kale ha ilaawin inaa button kusoo darsatid buttonkan hoos hadda oo noogu darsan yahay kaliya waa edit gareynaynaa marka asagaa taabanaya marka inaad edit gareysa rabtid kadib markaad taabato geeska kaga soo baxay meesha qoraalka laga bedelo qoraalka rabto ka dhigo get it now tusaale ahaan waa intaasun isagana hortaan markaad rabto inaad bedeshid ayada taawo kadibna advancedka meesha ku qoran tahay tag kadibna colorka meesha kaga soo baxaya colorka meesha ka dooro haddaan ayaan ka dhigana hadda waa easy waaye kan hoose oo spacerka waa iska bixi kartaa delete kaas taawo kadibna yes leh markaad soo jeedid sawirkan iyo qoraalkan kala koreeyaan si aad isku simtid waxaa soo qaadataa spacerkii kadibna waxaa gelisaa sawirka korkiisa spacerkaas taawo marka isaga kadibna waxaa badisaa nambarkiisa badi nambarkiisa markaa badisid waa isku simtid intaasoon qaybta mobiilka marka aan u baahnin waa iska yareynaynaa qaybta mobiilka taawo kadibna waxaa ka dhigtaa 0 ka dhig sababta ah uma baahnin markaad soo jeedid fartaas karo oo headlineka aaday u weyn tahay marka mobiilka la joogo marka ayada taawo kadibna font size-ka meesha mobiilka sii dooro kadibna fartaas intii ku qanacsa ka dhigo oo aadna u weyneyn aadna u yareyn marka sectionkan intaas ayuu nooga yahay haddii aan gudubno section kale sectionkan uma baahnid badanaa daarit asaga dhan waa iska dhaafi kartaa horta qaybtan hoose aan iska bixino ayada dhan uma baahnin qaybtan kale edit gareynaynaa marka sawirkan kuwa iska bedel waa taqaanaa sida iskaga bedelo sawirkaada soo gasho kadibna selected then waxaa rabaa ciwaankaas kore inaa iska waxeeno ciwaankaas kore waxaa ka dhigtaa about haddii producti aad rabto inaa aboutkiisa ka qortid ciwaankan kale sidoo kale waa bedeli kartaa brief info tusaale ahaan kadibna productiga about askiisa meeshaas kale oo textigaas ku qor about as fiican haddaa ka haystid oo koobi fiicana dan waxaa sameysaa journalgan waa iska bixi kartaa haddaa rabtid u baahnid badanaa title ka xigo isagana sidoo kale need more info check out here dan kan ugu soo hooseeyo waa iska sii bixi kartaa sidoo kale isagana u baahnid delete ka taawo marka buttonkaana sidoo kale qoraalkiisa waa bedelaynaa get your offer haddii aad rabto inaa buttonkan background colorkiisa aad bedeshid isaga taawo kadibna advancedka meeshay ku qoran tahay sii taawo background color meeshay ku qoran tahay waxaa ka doorataa colorkii aad bedeli lahayd tusaale ahaan aad guduud waxoo danger aad rabnaa saasaa u gey kartaa waa intaas one marka intaas sameysid qaybtan mugdiga oo hoos kaga soo muuqanayso ayadana iska bixi sababtoo space badan kaa qaadanaya uma baahnid sidaas kaa bixisid delete taawo kadibna yes waa taqaanaa markaad soo jeedid keliya waxaan ay dhiman inaa batanadii ku darno linkiyaashii linkii saa u sameysa marka waxaa tagtaa buttonka tag button get it now-ka kadibna waxaa soo qaadataa linkii kuu diyaarsanaa oo hadda aan soo qaadanay soo koobiye garee kadibna linkiga meesha geeska ay ku qoran tahay meeshaas dhig buttonkii aad dooratay kadib linkiga meesha ku qoran tahay dhig sidoo kale waxaa sameysaa buttonka ugu hooseeyana asagana inaad dhigtida u baahan tahay soo hoos u bax buttonka kala tag haddana linkiga meeshaas dhig sidaasna waxaan u gabagaboobay
samaynta landing page inta kale aad si dhammaystiri kartid waxaan aqoon saa'id uma baahno iyo barasho computerka sidaad taqaanid waa taqaanaa wixii kaa qaldan toosi markaad dhamaysid marka waxaad samaysaa waxaad taabataa meesha ay ku qoran tahay save oo kor kaaga soo muuqanaysa savekaas taabo si aad u save garaysid kadibna waxaad taabataa meesha ay ku qoran tahay preview si aad u aragtid siduu noqon lahaa pagekaas samaysay hadda saa u jeedid website-ka kor waxaa kasoo muuqanayo headerka WordPress-ka marka headerkaas uma baahnin markaa product haysiinayno sababtoo ah dadkeena si galgalaan website-keena ma rabno landing page-kaas oo keliya inay akhristaan kadibna ay ku gudbaan rabnaa marka waxaa samaysaa usoo laabo editorkii kadibna waxaad tagtaa meesha page settings ay ku qoran tahay then meeshaan waxaa ka doorataa geeska isolated meesha ah isolate mode-ka waxaa ka dhigtaa enable ka dhig meeshaas fur sidoo kalena meeshaas kale oo draftiga ah waxaa ka dhigtaa publish ka dhig si u publish garaysid macnaha page intaas markaa samaysid waxaad taabataa save kadibna waxaad taabataa preview saa u jeedid website-keeni kor dhan nadiif waaye landing page oo toos loo maleeyaa marka intaa rabnana intaas waaye marka isku baraayo inuu shaqeynayo landing page-kan buttonkiisa marka lagu dhufto waxaad taabataa meesha buttonka ku dhufo click ku sii haddii uu geeyo meeshii wax laga iibsan lahayd markaas wuu shaqeynaa hadda saa u jeedid kan markaa ku dhufan wuu shaqeynaa meeshaan qofka wax kasii iibsan karaa muhiimadda laga leeyahay waa intaas un halkaasna waxaan ugu ilaalaaday samaynta landing page waxaan u gudbi doonaa stepkan xiga oo ah Google Ads iyo sidii product oo haysan lahayd Google Ads-ka marka isla socod wanaagsan so next step waxaa waaye inaan Google Ads-ka samayno waa kuwan aan samaysano kadibna xaysiintii aan u gudagalno so isla socod wanaagsan ugu horreyn si aad account u samaysatid waxaa soo furtaa browserkaaga waxaadna ku qortaa Google Ads search then linka ugu horreeya kusoo baxaayo waa Google Ads marka asaga ku dhufo kadibna waxaa arkaysaa page-kan marka waxaa samaysaa waxaa ku dhufataa meesha ku qoran tahay start now si aad macnaha account cusub u samaysatid start now ku dhufo marka ku dhufatid page-kana kusoo bixi doono hadda campaign ma samaynayno laakiin waxaa dhahdaa create your first campaign meesha ku qoran tahay meelahan adoo waxba ka bedelin waxaa taabataa next kadibna subax skip kale leh mubaahan inaa campaign sameyno gaara ka samayn doonaa sidoo kalena skip leh kadibna leefda meesha ku qoran tahay taabo marka billinka meesha lacagta ka bixinaysa waaye meelahan haddii aad Soomaaliya joogtid waxba ka bedelin haddii kalena waddanka aad joogtid oo kadibna taamkan iska sax currency-gana USD ama meesha lacagta ku bixinaysa ka dhigo meeshan optional waaye inay phone kugu caawiyaan oo ku soo wacaan ku hagaan noo iska taabtay meesha kalena waxaa waaye in email ku soo diraan ayadana optional waaye yes ka dhig ama no midaarsido kadib submit taabo meesha ku qoran tahay marka inta samaysid continue to your account taabo marka saas account ku samaysay account markaa samaysid marka waxa ugu horeeya laga rabo waxaa waaye lacagta qaabka u dhiibi lahayd inaad soo gelisid so xataa wata meesha ku qoran tahay billion then page-kan uu geyn doonaa marka waxaa laga rabaa inaad samaysatid payment method so meesha ugu horeyso billion country Soomaaliya ku ahaado ama haddii waddan kale aad joogtid waa iska bedeli kartaa marka waxaa samaysaa payment profile taabo then meeshas organization-ka waxaa ka dhigataa individual meelahan formkana wixii aad taqaanaa tobanka meesha laga rabo waxaa gelisaa magaalada joogtid tusaale ahaan Muqdisho jawaada meeshaan ay qoran tahay street-ka meesha aad joogtid street number-kaaga geli meeshaas kalena province-ga waa gobolka aad joogtid legal name-kaana waa laga rabaa magacaaga meeshaas geli then hoos u bax create taabo meesha ku qoran tahay marka intaas samaysid meeshaan hoose oo payment method-ka taabo payment method-kaas oo hoos ku yaalo kadibna add credit card taabo marka kaarkaaga meeshaan soo geli kaarkaa lacagta ku bixinaysid badanaa isaga kaarkaa lagu dhiibaa lacag
then waxaa la save ana hadda inaan soo geliyo mar oo mid ay samaysan cancel iska taabanaa marka intaad samaysid kambiinka oo soo laaban kartaa oo meesha shaqada ka bilaabi lahayn isla socod wanaagsan marka so inta haysiinta aadan samaynin waxa ugu horeeya lagaa rabo waxaa waaye inaad samaysid keyword research oo research aad samaysid kadibna keywords fiican oo haysiinta aad ku samayn lahayd aad soo raasatid so asla soconno waxaan samayn doonaa keyword research marka ugu horeysa oo homeka aad joogtid waxaad tagtaa meesha ay ku qoran tahay tools markaad taabatid kadibna balaanin meesha kasii dooro kadibna keyword balaan ka taawo kadib waxaad taabataa discover new keywords meesha ku qoran tahay marka keywordka aad research gareyn lahayn ayaan u baahannahay keyword aad research gareysid haddii aadan haysan waxaad samaysaa waxaad tagtaa website-kii oo wax u iibinaysay ama productii aa u iibinaysay kadibna meeshaas waxaa kasoo raadsataa keywords oo ku saabsan productiga sida ugu fudud aad ku heli kartid waa inaad website-kooda booqatid kadibna aad keyword kasoo raadsatid so marka waxaad tagtaa website-kooda markaad tagtid meeshaan akhri kadibna waxaa kala soo baxdaa keywordskii ku anfaco oo is leedahay uu ku saabsan yahay productigan had tusaale ahaan weight management noo soo qaad goobi soo dhaho kadibna waxaa kusoo laabataa website-kaaga marka waxaa gelisaa meesha searchiga geli vast ku dheh then waxaa iska bedeshaa wadanka wax ku haysiin doona waa United States so wadanka waxaa ka dhigataa Mareykanka ama United States ka dhigo meeshaasaa ka raadi kartaa kadibna saf dheh then waxaa taabataa meeshay ku qoran tahay get results kadibna wuxuu ku siin doonaa keywords fara badan haddii keyword lisku soo baxo meesha row waxaa ka dhigataa oo hoose 500 ka dhigo marka keyword markaan raadinayo meesha ugu horeysa oo laga fiiriyo waa average monthly searchiga hadduu badan yahay oo bilaha waxaa la rabaa inuu 2,000 meelahaas ka badnaado laakiin keywordka hadduu unique yahay kun wax koo saxiix taa qaadan kartaa meeshaasa kuu la fiiriyaa meesha labaad oo la fiiriyo waa 3 months janjiga balasina waxaa mar walba fiican meesha kaloo la fiiriyo waa top of bidranjiga lacagta oo macnaha page kugu horeeyo lacagta lagu qiyaasay taasna lacagtaas inay yaraataa mar walba fiican sidoo kalena competition-kana waa la fiiriyaa low and medium inay hal qaataa wax high waa la iska ilaaliyaa laakiin lacagtooda haddii yar tahay waa qaadan kartaa high marka waxaan qaadan doonaa keyword oo competition-kiisana uu yar yahay lacagtiisana sidoo kale waxaa yar tahay searchigana uu badan yahay waxaa isla soconnaa marka keywordiskan fiiri mid kugu habboon kareed had tusaale ahaan kan oo kale lacagtiisa saaid uma badno sidoo kalena searchiskiisa uu badan yahay waa keywordka ugu muhiimsanna waaye sidoo kalena balaas waaye marka aan qaadano tig saaro keyword kale aan raadino keywordiskan oo faraha badan midkaa rabtaa ka qaadan kartaa keliya competitionka iska ilaali iyo lacagtaas mid kale aan qaadano tusaale ahaan so marka keywords fara badan aan xulatid oo aad kasoo dhamaatid waxaad samaysaa waxaad doorataa xataa wataa meeshay ku qoran tahay add keyword oo korkaas muuqanaysa kadibna kuu saf garin doonaa meesha kor kuu saf garin doonaa marka meesha kor ku laabo haddana waxaa soo qaadataa keyword kale 2 keywordna waa sala geli kartaa haddaad rabtid weight loss iyo blood sugar markaad samaysid sida hadda camal waxaa ka fiirisaa meeli hadda aan kuu sheegay average monthly searchiga iyo sidoo kale competition-ka waa labada meel ugu muhiimsan marka waxaad doorataa sidoo kale waxaa soo qaadataa keywords kala soo qaado keywordska waxaa laga rabaa inay noqdaan ilaa 10 ilaa 16 meelahaas inaa keensataa laga rabaa keywords kala duwan oo soo qaadan kartaa haddaad rabtid marka keywordka badso then sidaa camal haddana waxaa taabataa add keyword marka qoran tahay wuu saf garan doonaa haddana meesha searchiga ku laabo keyword kale soo gasho haddana get results deh soo raadi haddana keywords fara badan markaa saas kusoo qaadatid keywordskana waxaa laga rabaa inay fara badnaadaan si oo macnaha oo haysiintaada aysan usoo koobnaan so keywords badan soo dooro then markaa dhamaysatid oo doorashada dhamaysid waxaa samaysaa add keyword meesha ku qoran tahay taawo si lagu saf gareeyo
marka aniga intaan iga eg tahay marka waxaad taabataa meeshay ku qoran tahay save keywords, saved keywords. meeshaasaa lagu save gareeyey. meeshaan ka arki kartaa keywordska hore soo qaadatay, waana keywordiskaan isticmaali doono. So waxaa u baahan tahay inaad degsatid. waxaad taabataa meesha kore ee ku qoran tahay si aad u degsatid downloadka meesha kor oo flarch ee kaasoo muuqanaystaao, kadibna CSV ahaan kusoo degso. markuu kuu soo dego waa furi kartaa, waa arki kartaa Excel hadduu kugu jiro. tusaale ahaan waa kanaa keywordskii noo diyaarsanaa Excel haddii aan ku furno. keywordiskan waa keywordiskan isticmaali doono markaa haysinta guda galno. intay noogu safgaraysan yihiin hadhow waa kusoo koobiyeysanaynaa oo keliya. soo isla socod wanaagsan waxaa u gudageli doonaa qaybtaas iyo haysiinta. so inta haysiinta aadan u gudagelin waxaa fiican inaad fahantid saddexdan shay oo kala ah campaign, ad group iyo ad. so campaignka ugu weyn waxaa waaye objectiveka guud ee haysiintan. haddii ahaan lahayd inaad sale iyo barjis ka fikirtid, ama haddii ahaan lahayd website traffic inaad ka fikirtid, campaignka lagu soo doortaa. campaignka waa goolka ugu weyn meesha aad ka dooran lahayd. campaignka marka wuxuu ka koobnaan karaa intaasoo ad group ka soo dhexgeli karto. campaignka ad groupka ku xigo. ad groupka waxaa waaye meeshii keywordskii laga maamuli lahaa oo keywordskii la geli lahay iyo biddingkii iyo aad ka dooran lahayd. so kadibna waxaa kusi xigo adkii oo ah meeshii haysiinta caadiga ahayd ka maamuli lahayd, sida inaad gelisid headlines iyo description iyo haysiinta caadiga oo soo muuqanaysid meeshii aad gelin lahayd waaye. soo isla socod wanaagsan waxaan ka bilaabi doonaa campaign. so marka ugu horeysa waxaa taabataa meesha geeska campaign ay ku qoran tahay. campaignkaas markaa taabato waxaan kusoo bixi doono pagekan. meeshaan waa meeshii aad campaignada ka sameyn lahayd. hadda haddii aad intiso campaigno hore igu samaysnaa oo lacag iga baxday, campaignadan oo kale hore u haysiiyey waa affiliate waaye. hadda kan saa ujeedid $95 camal iga baxday. oo product kale oo affiliate oo kan camal oo haysiinayo waaye. sida ujeedid muddadii ugu dambeysay oo 2 isbuuc ahayd oo keliya ayay waxay ku baxday $95. ka yarna adigo geli kartaa haddaad rabtid. so hadda waxaa arki doonaa sida campaign loo sameeyo. meeshii bilowga ahayd aan ku laabto overviewga campaignka si aa macnaha ula socotid bilow ilaa iyo dhammaad. so campaign si u samaysid, ugu horeyn waxaa ku dhafataa meesha oo new campaign ay ku qoran tahay. new campaign kadib new campaign kala taabo. markaad taabatid waxa ugu horey aad dooranaysid waa sale. salekaas dooro. objectivekeena waaye goolkeena waa inaan wax iibino. salekaas dooro. sidoo kale haddii aad rabtid website traffic waa dooran kartaa. meelaha qaar oo website traffic waa la dooran karaa oo adoo haysiinaysa xitaa haddii aad ku cusub tahay macnaha Google Adska. so markaa sale dooratid kadibna waxaad taabataa continue. markaad taabatid pagekana kusoo bixi doono. aniga muhiimadeena ugu weyn waa searchiga. meesha searchigina wax ku haysiino soo searchi dooro. then waxaad taabataa websiteka. website markaad dooratid linkii pagekaaga oo landing page ka soo qaad oo linkigaas aan ku laabano. so linkii landing pagekeena aan soo koobgaraysano. koobi soo dheh. koobi markaa soo dhaatid kadib meesha hadda kusoo laabo. kadibna waxaa gashataa meesha websiteka oo la gelin lahay. last ku dheh. then hoos u bax campaign nameka. sidoo kale magaca waxaa u baxsataa campaignkaga oo hadhow aad gari kartid campaign. then waxaa samaysaa waxaad taabataa continue. kuwaan waa iska indhatiri kartaa. start now taabo. kuwii hore waa hore u sameeyey. so biddingka hadda kusoo bixi doono. biddingka marka waxaa ka dhigataa meeshaas conversions hadaa ka dhigta lacag badan ku macnaa laga yaabaa. so clicks ka dhigo maadaama ku cusub tahay Google Adska. then waxaa gashataa maximumka. badanaa waxaa fiican $1 inaad gashatid. lacagta ugu badan oo bar click kaa bixayso $1 fiican inaad gashatid ama ka yar. then waxaa kusoo bixi doona networkii wax ku haysii lahayn. ugu horeyn meeshaas oo hoose oo locationka waxaa ka dhigtaa United States maadaama United States wax ku iibinayno. kor soo laabo. meeshaan labadan meel inaad tig ka qaadaa fiican oo search keliya aad ku haysatid.
haddii kale waxaa meel kale u geenaa oo xaysiintaada meel kale ku arki doontaa. Locationka marka United States dooro kadibna meeshaan fur waxaa ka dhigtaa presidency bas ka dhig dadka joogaan oo keliya ka dhig. Then hoos u bax language-ka English default badanaa kugu dooran language-kaas badanaa waxaa ka dhigtaa English iska bedelin. Marka hoos u bax meeshaan kale default waaye optional waaye ayada haddaad rabto waad dooran kartaa waad dooran kartaa haddii kale waa iska dii kartaa tan on dhigi kartaa. intaas markaa samaysid next taabo qaybta kale ugu jiri doontaa. Markaan ad groupkii u gudagalnay campaign meesha soo baxnay qaybtan waa ad groupkii meeshii keyword kala geli lahay. Keywordskan oo noo diyaarsan yihiin isagoo xogsiinaya keywords oo fara badan laakiin badanaa keywordskan waa broad waaye side macnaha broad yihiin marka lama qaadan karo badanaa uu xogsiiyo. Keywordska hore soo diyaarsatay fiican inaad badanaa soo qaadatid. Hadda keywordiskan aan dhammaan iska tirtirno kadibna aan soo qaadano keywordskii oo noo diyaarsanaa oo aan soo degsanay. Marka waxaad tagtaa meesha keywordska ay kugu diyaarsanaayeen oo excelkii aadayo kasoo furnay kadibna waxaa soo koobisaa koobgaree keywordskii dhammaan aan soo diyaarsatay keyword kale soo koobiyeyso then keywordiskan meesha gasho ayagoo dhammaystiran. Marka keywordska 3 qaab waa loo geliyaa saan hadda sida adiga ku diisid oo sida adiga oo broadka ah broaday ka noqonayaan markaasna lacag badan ay ka cunayaan wana fiicna badan inaad broadkan ku diisid. Hadda tusaale haddii aad bracket gelisidna oo laba meel bracket meel walba bracket gelisid keyword kasta markaas waxay noqonayaan exact match oo keywordka aad dooratay oo keliya ayaa dadka ugu keenaya. Waxaa kaloo jiro phrase haddii aad gelisidna oo macnaha quotation markska labada dhinac haddii aad gelisid markaasna waxay noqonayaan phrase keywordska aad soo raadisay wax oo ka agdhow ama ayagii ah oo keliya ayaa dad ugu keenaya. Ani waxaa ku dayn doonaa broadkan si uusan waqti badan iga cunin. Campaignkan waa tusaale on campaign sax ah sameynayo maahan. Marka waxaa ugu gudagali doonaa xaysiinta caadiga ahayd. Hoos u bax oo meesha adiska tag meeshaan meesha xaysiinta caadiga laga sameyn lahaa waaye meeshaas oo website-ka si default kugu jiri doono. Marka waxaa gudbi doonaa meeshaan headlines. Headlineskan waa muhiim sababtoo ah waa qofku markuu wax soo search-gareeyo keywordska caadiga ah oo arki lahaa waaye xaysiintaada kadibna uu kusoo dhufan lahaa. Marka xaysiintaada haddii oo headlineskeeda soo jiidasho leeyihiin markaas waxaa laga yaabaa inaad clicks badan heshid saasna macnaha ugu faa'iidaysatid oo lacag badan ku samaysid. Headlineskan iska hagaaji. Headlineskan hadda tusaale ahaan meel ay u safe garaysan yihiin. Headline 1 mar walba waxaa fiican keywordkii oo dadka soo search gareynayeen wax la mid inaad ka dhigtid. Hadda tusaale ahaan saa u jeedid keyword headline waxay u safe garaysan lose weight and verified iyo sidoo kale goodbye to verified. Labadaas qaab waa ka dhigi kartaa tusaale ahaan oo keliya waaye inaad qaadato muhiim maahan. Marka waxaa ka dhigtaa mar walbo waxay dadka soo search gareynayeen wax la mid ka dhig haddii soo koobiyey headline 1 geli. Marka inta samaysid meeshaas oo bin ka taabo kadibna position 1 ku bin garee waa muhiim waaye haddii kale headline 1 toos ma noqonayso. Marka inta samaysid sidoo kale haddii headline 1 kale ku diyaarsan yahay asagana soo qaado meesha labaad gasho kadibna asagana position 1. Marka labadaas saa kala dooran doono mid fiican oo sameynaa mid fiican oo badanaa oo competitionkiisana uu yaryahay oo dadkana badanaa click badan ku helaysid wuxuu ku sameyn doonaa oo hore ku keeni doonaa labadaasaa kala dooranaya. Headline 2 marka haddii aan gudgalno headline 2 isagana oo noo safe garaysan yahay badanaa isagana waxaa laga dhigaa wax oo soo dalbasho order now shop online wax camal laga dhigaa isagana uu noo safe garaysan yahay. Hadda aan soo koobgareyno noo soo qaad kadibna position 2 asaga laga dhigaa. Position 2 badanaa la dhigaa kaas shop online now soo qaad isagana geli meeshaan waxaa ka dhigtaa markaa position 2 kan waa qalday position 1 ka dhigay position 2 inaad ka dhigtaa fiican. Headline 3 marka asaga badanaa waxaa waaye wax oo kalsoonida dadka badinayo waaye. Kalsoonida dadka badinayaan inay kusoo dhuftaan ay keenayaan. Marka tusaale ahaan 180 days money back guarantee qofka hadduu arko
waxaan damaanadii leeyihiin isdhaha wuuna kusoo dhufanaa xiisayntaada bas sentiri asagana ku baangaree. sidoo kale mid kale soo qaadan kartaa haddaa haystid 100% oo natural gradients, sidoo kale asagana kalsoonida badanaa waxaan natural way dhahaa iska lahaayeen, taasna waxaa laga yaabaa inay xiisayntaa kusoo galaan. marka intaas diyaan ka gudubno, intaasoo keliya ayada headlineska oo gudbi kartaa, mid walba headline 2 xabo camal inaa ka haystaa fiican, kadibna saa isku habeenaya. marka qaybta descriptionka diyaan u gudubno, description koowaad waa wax wararkii ku saabsan waayo badanaa fiican inaad ka dhigatid. ChatGPT kuu qori karo ayaasha meelahaas aadi kartaa, kadibna kusoo qori kartaa. description 2ga isagana kii hadda leh uu sii dhamaystiraa. descriptionka muhiim waaye asaga xitaa, so iska qorxe. marka intaas aan sameyno kadib next taabo oo meesha hoose ay ku qoran tahay next taabo. next sidaas markaa taabatid wuxuu ku gudbin doonaa meeshii budgetka ka saxeneed oo lacagta. so waxaad doorataa meesha ay ku qoran tahay set custom budgetka, meelahan iska xir, set custom budgetka soo furo. marka meeshan waxaa gelisaa lacagtii oo maalin kasta lacagta dailiga badanaa waxaa fiican 15 ama 10, haddaa 15 wax ka badan heli kartidna okay waaye. marka wuxuu ku saari doonaa isbuuci inta keliga heli doontid iyo average CPC-ga oo halkii keliigbu inta lacag kaa bixi doonto iyo costiga ku bixi doona isbuuci oo dhan. kadib markaa gashitid next waa taaban kartaa, laakiin hal waxaan ilaaway, waxaa ku laabataa meesha keywordska, kadibna xaysiinta magaca ku bedeli kartaa, option waaye, adeertuna iska dhigi kartaa. macnaha magaca gari kastid hadhow oo unique gasho. marka hadda waxaa soo laabataa meeshii budgetka caadiga ahay, budgetkana uu noo dooran yahay. haddana waxaa taabataa meesha hoose ay qoran tahay nextyaas taabo. wax kale kuma dhimin hadda, kambiinkii iyo ad groupkii iyo xaysiinta inta waa samaysay, macalaa budgetka waa dooratay. so marka hadda review geenaya, reviewgan waxaa ka arki kartaa waxyaaba hore u samaysay, haddii wax khalad ay ku jiraan oo ku laaban kartaa weli ma publish gareen. so si aad u publish garaysid xataa meesha hoose ay ku qoran tahay publish campaign. publishkas markaa taabatid asagaa ku publish gareyn doona. ani hadda campaignkan ina sameeya uma talagalin, waa iskaga bixi doonaa. hadii laakiin waxaa muhiim inaad publish garaysid, markaa review ka samaysid publish garayso. publish markaa dhahdid ayagaa review gareyn doona, haddii aysan wax khaldan campaignka ku jirin oo Google-ka policy-giisa waa aqbalayo, kadibna ay kusoo dayn doonaan, live saas ku noqon doonaa. so haddii aan soo koobo sida u shaqeeya affiliate-kan iyo qaabka lacagta ku sameyn lahayd iyo meesha kugu dhici lahayd. marka ugu horeyso qofku wuxuu soo search gareyn doonaa keywordska meesha ku qoran mid ka mid ah, hadduu soo search gareeyo then xaysiintaada haddii ay top tahay oo lacag fiican aa gelisay, page kugu horeeya imaanay. markay imaato qofka xaysiintaasoo kugu dhufanaa, xaysiinta marka ku dhufto automatically waxaa loo geyn doonaa website-kaaga ama landing page-kaaga marka la geeyo, then qofku information yarisu ka aqrisanaa, hadduu productiga u bogo then wuxuu ku dhufan doonaa butankii aad u diyaarisay inaad ku dhufto, then wuxuu tagi doonaa meeshii wax laga iibsanayo website-ka caadiga ahaa. website-kaas markaa haddii uu ka iibsado oo information fiican uu kasii helo oo ka iibsado, then adi waxay lacagta kugu dhici doontaa akoonkaaga digit store-ka aa ku lahayd. so digit store-ka markaa gashidbu page kugu horeeya oo markaad kusoo baxayay ayaad ka arki kartaa inta lacag aad samaysay. hoos u bax markaa page kugu horeeya soo gashid, kadibna waxaa arki doontaa meesha ku qoran tahay all earnings per day. meeshaas 00 waaye, laakiin haddaa lacag shaqaysid meeshaas isbedeli doontaa. bishiin intaa lacag samaysid meeshaas ka arki doontaa, wiigeena sidoo kale meesha hoose. marka inta lacagta kusoo dhici doontaa, kadibna haddii aa binary waxaas aa leedahay oo kula bixi doontaa unbabel iyo waa intaas uun. halkaasna waxaa noogu ilaaday step 4 qaybtiisii page-ka ahayd ama Google Ads-ka. insha Allah course-ka socdo waxaan ku arki doonaa qaabkii aad ayadoo free ah ugu shaqaysan lahayd affiliate marketing. qaabka page-ka wuxuu u fiican yahay qaabka free-ga. marka qaabka free-ga wuxuu kaa qaadan doonaa waqti badan, bilooyin, sanado inuu kaa qaataa laga yaabaa, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad blog post aa qortid
kadibna postiskaas macnaha pageka hore imaadaan Google-ka SEO hadduu fiican yahay, kadibna sidaas ayaa lacag ku samayn doontaa oo qaab free ah. Laakiin taas waxaa laga yaabaa ugu yaraan inay kaa qaadato 3 bil ama 90 maalin. Qaabka u shaqeysa badanaa ku xiran tahay. Muuqaalkeena intaas ayuu noogu yahay. Ha ilaawin inaad channelka subscribe saarto, sidoo kalena muuqaalka aad like saarto. Mahadsanid.